arrimaha dibadda ee Iiraan Cabbaas Caraaqji oo kulan xasaasi ah la qaatay taliyayaasha ugu sarreeya ciidamada dalka Iiraan. waxaa soo kale barnaamijka aad ku daawan doontaan kulanka dhex mari doona Trump iyo Netanyahu oo loo diidayo inay ka soo qayb galaan wariyeyaasha. sababtu maxay tahay iyana barnaamijkan ku faaqidi doonaa. Indonesia oo sheegtay inay ciidamo geyn doonto Gaza iyadoo noqon doonta dalkii ugu horeeyay ee ciidanka nabadda sugaya ee Gaza ee halka tagi doona. qaybta dambana waxaan idinkugu hayaa Sacuudiga oo si toos ah ugu hanjabay kooxda Imaaraadku taageero ee dalka Suudaan ee la yiraahdo dacmu sariic degdeg u joojiya falalka foosha xun ee aad ka wadaan Suudaan haddii kale. haddaba Sacuudiga oo seefta galka kala baxay dhanka Suudaan markan isaga iyo Imaaraad halka ayaa la isku farasaari doona. qodobadaas ayaynu barnaamijkeena ugu horeeya ku faaqidaynaa maanta oo Talaado ah inta aan ku jirno warar cusub hadday soo kordhaan waan idinla socodsiin doonaa. wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeennii ugu horeeyay maanta oo Talaado ah waxaynu ku soo qaadanaynaa qodobada soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnay. waan hubaa inaad si weyn uga hesheen macluumaadkii iyo wararkii aynu kusoo gudbinay barnaamijyadaydii shalay ee saddexda ahaa ee aanu soo gudbinay. haddaba barnaamijkeena talaadadan ugu horeeya waxaynu ku bilaabaynaa xaaladda Iiraan iyo Maraykanka. dhowaan ayaa kulan waxaa qaatay sidaa la socotaan jimcihii lasoo dhaafay ayay ahayd Maraykanka iyo Iiraan. wafdida Iiraan waxaa hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ninka la yiraahdo Cabbaas Caraaqji halka Witkoffna uu isaguna hogaaminayay dhanka Maraykanka. haddaba dhowaan Witkoff ayaa isku soo sawiray isagoo dul saaran mid ka mid a maraakiibta dagaalka saraakiisha Maraykankana la kulmaya. haddaba maanta iyadana waxaa soo baxay wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan oo isaguna kulanka dhanka Iiraan hogaaminayay ayaa wuxuu kulamo xasaasi ah oo weliba qarsoodiya la qaatay taliyayaasha ugu sarreysa ama ugu sarreeya ciidamada dalka Iiraan. wuxuu warbixin ka siinayay wixii meesha ka dhacay iyo waxa la filan karo. waxa laga filan karo kulamadaas haddii la isku soo laabto iyo meesha la kala joogo iyo muhiimadda ciidanku ay u leedahay inay la socdaan xaaladaha diblomaasiyadda halka ay marayaan. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay wakaaladda wararka Turkiga Anadolu ayaa waxay leedahay Caraaqji waxaa la sheegay inuu kulamo la qaadanayo madaxda sare ee ciidanka isagoo markaa usoo gudbinaya halka ay wax marayaan oo ku saabsan wadahadallada ay Washington la yeesheen ama Maraykanka ay la yeesheen. wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Cabbaas Caraaqji ayaa talaadada maanta kulamo la qaatay mas'uuliyiinta militariga ugu sarreeya dalkaasi Iiraan oo uu ka mid yahay taliyaha guud ee ciidanka General Amir Hatimi. haddaba waxaa la sheegay in macluumaad ku saabsan halka ay wax marayaan wadahadallada iyaga iyo Maraykanka uu u gudbiyey. wadahadalladaasoo dhowaan ka dhacay caasimadda dalka Cumaan ee Masqad. haddaba waxaa la sheegay in wakaaladda wararka ee dalka Iiraan ISNA ay iyadu markaa warkan baahisay. haddaba Caraaqji iyo mas'uuliyiinta militariga ugu sarreysa dalka Iiraan halka ay ku kulmeen ilaa hadda lama sheegin sababo dhinaca amniga aawadeed. marka laba arrimoodba way ka soo baxaysaa meesha in nimankanu wixii wara inaan marnaba wadahadalladu aysan rajo badan lahayn in loo sheegay inay militariga iyo awoodooda iyo difaacooda xoojistaan. taas waa midda kale ee warbixinta wakaaladda wararka Iiraan laga soo xigtay ay soo saarteen waxay tahay mas'uuliyiintan meesha ay ku shireen lama sheegin sir waaye. macnaha madaxdii ugu sarreysay ciidanka iyo wasiirka arrimaha dibadda haddii la ogaado meel iyagoo jooga wax kasta lagu samayn karaa. gantaala lagu dhufan karaa, waa la soo weerari karaa, wax kasta. marka meel qarsoodiya ayay iyaduna ku shireen alle. marka al-cumuum tani waxay muujinaysaa marka in wadahadalladana gacan lagu haysto militarigana gacanta kale ay difaac uga jiraan.
marka iiraan hawshaas ayaa ka socota iyaduna wararkii ugu dambeeyay. dhanka kale arbacada berito oo la filayo inay kulan muhiima qaataan Netanyahu iyo Trump ayaa warar ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta Israa'iil saakay waxay leeyihiin kulanka arbacada dhici doona ee dhex mari doona labada oday waxaa la yiri wariyaasha ma imaanayaan. ninka Trump la leeyahay wariyaashu uu iska jecel yahay nin kastoo u taga inuu meesha ku baashaalu rabaa, laakiin nimankan Yahuudda waxay yiraahdeen wariye nooma imaanayo. aqalka cad ayay u gudbeen, aqalka cadisana waa ka yeelaa la leeyahay. marka wariyaashii sababta loo diiday maxay tahay? waxaa leeyahay khilaafa jira oo ku saabsan arrinta Iiraan arrimahaas. ninkan marka Netanyahu wuxuu rabaa si hoose ninkan inuu wax ugu sheego uu ka dhaadhiciyo inuusan wax nabada qaadan, nabadana shuruudaha Israa'iil ay wadato lagu saleeyo. marka arrinkaas isla soo kordhay. haddaba arintu soo jaridda la yiraahdo Ra'yul Yawm saakay waxay leedahay iclaam cibri ama warbaahinta cibriga ama Yahuudda waxay ka hadleen kulanka dhex mari doona Netanyahu iyo Trump inuu noqon doono mid albaabada u xiran oo kaliya labadoodu ay geli doonaan, iyadoo sidoo kale aan loo ogolaan doonin in iclaamka ama warbaahintu ay markaa ka qayb qaataan, iyadoo la sheegayo in khilaafaad dhinaca ra'yiga ah labada dhinac uu u dhaxeeyo oo ku saabsan arrinta Iiraan sida loo xalinayo. marka ninka Netanyahu uu si ballansanaa wuxuu leeyahay wariyaal yeesan noo imaan, kulankana wuxuu noqonayaa mid albaabada u xiran adiga bisa galeen. odagu wuxuu rabaa inuu jaanis inta ku helo uu ka dhaadhiciyo rabaa. kuwa kaloo Falastiiniyiina wax qoraya arkay qosolka iga dhabaaday waxay leeyihiin nimankan saaxiriin waaye dheh Yahuudda niman caadi ma odaga inta beel lagu xirto ilaa taatikeeyaa rabaa dheh gabadhina amar iska bixiyo hal duqeeyo hal lagu dhufto kaliya inuu dhaho. marka Falastiiniyiintu caadi ba way shaqaalaan, laakiin nimankan xog badan iska ay Yahuudi Falastiin cid kaloo istaqaana ma jirto adduunka hadaysa iyagu is aqoonin. marka qodobadaas halkaas ay kaga gudbaynaa. sheekada kale xiisaha leh waxay tahay arrinta Gaza. ciidamadii ugu horeeyay dalkii ugu horeeyay ayaa soo diraya ciidamada la aruurinayo ee Gaza nabadda sugay. Indonesia ayaa ciidankeedu waxay sheegeen inay kumanaan askartooda diyaariyeen si ay Gaza u tagaan, laakiin waxay yiraahdeen annagu shaqo kuma lihin hubka dhigis Xamaas iyo waxa kan annaga uma waadin. Xamaas afaareed ma galeen, annaga meesha waxaan u tageynaa security-ga nabadgelyada inaan sugno mamar oo maartay meelaha gargaarku marayo dadka gargaarka iyo waxa kan iyo in la gaarsiiyo annaga shaqadeena taas way dheen. halka marka Israa'iil iyo Mareykan iyagu dalalka imaanaya ay sheegayaan haddii loo baahdo awood hubka inay uga dhigtaan Xamaas, annaga marka taas kuma jirna yiraahdeen. haddaba marka arintu soo wararkii ugu dambeeyay Al Jazeera waxay leedahay idaacad Israa'iil ah waxay sheegtay inay bilaaban doonaan u diyaar garowga soo gaaridda kumanaan askar Indonesiana oo iman doonta Gaza ayay imaanayaan. haddaba idaacadda wararka u faafisa Israa'iil ayaa sheegtay inay hadda socdaan diyaar garowga in markaa ay soo gaaraan kumanaan ciidamo Indonesia ka tirsan marinka Gaza si ay markaa uga shaqeeyaan howlgalka deganaanshiyaha caalamiga ah ee la doonayo in lagu soo dabaalo deganaashiyo marinka Gaza. haddaba qorshahan ayaa wuxuu qayb ka yahay tallaabooyinka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku doonayo in lagu soo gabagabeeyo dagaalka muddada ka socday Gaza. marka Israa'iil sidee u aragtaa ma u aragto taas wali lagama hadlin, laakiin Indonesia waxay tiri diyaar waaye, ciidankana waa diyaar, waa la rarayaa xaggaas la geenayo. kadib cidii marka dhibaato ka qabta iyada ayaa soo hadli doonta la leeyahay. haddaba qodobka isaguna halkaas ayaanu kaga gudbaynaa. qadar xayeysiisa kadib waxaan u gudbaynaa sheeko kale oo yaab leh. Sacuudiga oo doonaya mar kale inuu ku qararamsado Suudaan, Imaaraadka iyo kooxdiisa. fariin culus ayuu Sacuudiga maanta dirayaa. uu leeyahay kooxda la yiraahdo dacmu sariic ee Imaaraadku taageero waa inay joojisaa falalka foosha xun ee ka wada gudaha dalka Suudaan.
haddaba sacuudiga waa soo dhigtay waraan idin hayaa xayisiinta kadib. kulanti wanaagsan asxaabe, meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii ugu horreeyay maanta oo talaadaha waan idinkugu soo gudbanayo warbixinadii soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn. haddaba qaybtan waxaynu ku faaqidaynaa Sacuudi Arabia ayaa waxay sheegtay inay u hanjabeen kooxda la yiraahdo dacmu sariic ee imaaraadku taageero ee dagaalka ka wada gudaha dalka Suudaan. haddaba sacuudiga ayaa u muuqda imika inuu doonayo meel kasta inuu kula dagaalamo imaaraadka. Yaman uu ka saaray, Soomaaliya uu ka saaray, haddana Suudaan inta u dhiman iyo kooxdiisa iyo asagaba inuu isku daru rabaa. sheekadu marka aaday u kulushahay dhankaas marka laga hadlayo. haddaba aan idin tuso wakaalada wararka ee Anadolu waxay leedahay sacuudigu wuxuu ka codsaday kooxda dacmu sariic inay si degdeg ah u joojiso xadgudubyada ay ka geysanayso gudaha dalka Suudaan. sacuudigu marka waxay leeyihiin midnimada Suudaan lama taabtaan waayo, kooxdan waa inay joojisaa falka ay wado, haddii kale nagtaa ka saaraa u leey. ayaga imaaraadkooda meesha iyo waxa ay wadaan waa burburina u taagaya. sacuudigu marka waa soo jeestay. hadda wuxuu leeyahay caadi maaha. waatii hadda dhowaan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya iyo wasiirka gaashaandhigga Sacuudiga heshiis ay saxiixdeen oo warbaahinta Sacuudigu ay aad uga hadlayaan oo la doonayo istaraatiijiyad military inay wada gaaraan saldhig in la sameeyo si loo ilaaliyo badda cas iyo dhibaatooyinka saldhigana la doonayo waliba meelo u dhow badda cas in laga sameeyo. wararka qaar sheegay in laas qoray ay Sacuudiga iyo doonayaan in halka ay saldhig ka sameystaan. marka sheekooyinka Sacuudigu marka isballaarintiisa gobolka iyo awoodiisa iyo wixii oo dhan ayuu markan la soo baxay sida hadda muuqata. kooxdan Suudaanna waxaa leeyahay ma dhageysan doonaan warka Sacuudiga, laakiin waxay la kulmi doonaan jug culus. Sacuudigu nagtu ka saari doonaa. marka xaalku marka halkaas ayuu marayaa. wararkaas waxay ayeen kuwii ugu waaweynaa ee soo kordhay. asxaabay tani intaynu kala maqnayn barnaamijkeenii ugu horreeyay waa naga intaa maanta oo talaadaha. asxaabay like gareeya oo share gareeya barnaamijka. haddii aad nagu cusubtaana subscribe-ka ka iloobi YouTube-ka, Facebook-na follow garay. inta aan mar kale barnaamijkan lamida ku kulmayno akhyaaray meel kastoo aad joogtaan, nabadgelyo.